طبعا qaybtan waa qaybtii afraad ee wararkeena guud ahaan gaar ahaanna qaybta labaad ee Horfadhi TV iba furka warbaahinteena balaarinta Horfadhi Group wuxuu ka kooban yahay warbaahin kala duwan daawashana qiimaha leh oo runtii aad si balaaranaysa dhawaana waxaan rajaynaynaa in dhammaan adduunka oo dhan si weyn looga wada daawado waxaan rajaynayaa in qaybta website-kana aad ula socotaan wararkeena dalkeena hooyo luqadaha kala duwan afkeena hooyo afka Englishka labadaba waa ku qoran www.horfadhimedia.com ayaad kala socon doontaan qaybta Twitterisk ayaan leenahay iyagana deebeed madawashana qiimaha aad kala socon doontaan Facebook sidoo kale waxaan leenahay Facebook Horfadhi Media wararkooda kala socon doontaan ka ayaga iyo ka Engineer Yaasiin dhamaanteen madawashana qiimaha aad baan idin salaamayaa soo dhawaada mar kale iyo mar labaadba ayada oo wali lagu guda jiro xal u helista ogaanshaha dhibaatadii uu geystay weerarkii lagu qaaday dawladnimada dalka Mareykanka gaar ahaan aqalkii Capitol Hill ka bishii Janaayo ee sanadkii hore ayaa waxa la ogaaday in dad badan ay aad uga codsanayeen madaxweynaha dalka Mareykanka inuu farageliyo oo uu joojiyo weerarkii taageerayaashiisu ay ku hayeen waaxda Capitol waxaana markale la soo bandhigay qoraal ay dirtay gabadhiisii Ivanka Trump ee ayadu la taliyahana ugu magacaawneed taasoo odayga ka codsanaysa aabaheed inuu arinta farageliyo oo uu ka joojiyo dadkaas inay dambiye galaan waxa kaloo la sheegay in xildhibaan kale Bernie Thompson ee gobolka Mississippi asaguna saas oo kale uu ogaaday kadibna uu la wadaagay panelka loo yaqaano qaybta baaritaanka ay hogaamiyaan xubnaha sarsare ku-xigeenka gabadh ka ah barnaamijkaas ee xisbigiisii ka tirsan Lisa Cheney ee gobolka Wyoming iyadoo ka socota ayaa waxay ku tilmaantay inay tan mar kale cadeynayso iyadoo APC la hadlaysay waxa ay ugu yeedhay in cid walba oo ay u cadeynayso cid arintaas ka dambeysay waxa jira marka qalalaas dhaco dad la soo jiheeyo la soo kiciyo cid ka dameyso miiska gadaashta fadhida taasna way iska cadeed inay Trump tahay waayo qof walba Trump ayuu ka codsanayay oo ku jirto gabadhiisa uu dhalay bay tiri inuu arinta farageliyo oo dadkaasi ka joojiyo dambiyada ay galayaan iyo dalka ay burburinayaan waayo markay timaado national security iyo waxyaalaha amniga qaranka ciduna ma qaadato compromise ama cidu kama gasho tanaasul iyo lool iyo wada hadal kama gasho arintaasi waxa ay naxsuusinaysaa waxyaalaha iyo wararka ka imaanaya dalkeena hooyo wararka ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan waxaan qodobka ugu horeeyay daawashana qiimaha leh mar walba waxaan jeclahay adduunka sidoo fikirayay markaynu aragno gabadhan hadlaysa Lisa Cheney la dhaho waa xisbiga jamhuuriga waxa ay soo dabagalka ku haysan waa madaxweynaha xisbigeeda ahaa way sababta dabagalka u haysaana xisbigu ka weeyay waxay baaraso wadankeedii ayay baarasa waxyaalo khatar gali kari lahaa oo maartay khatar gali kari lahaa marka runtii arin mar walba wadanka ayaa dadka wuxuu kala weyn yahay maartay arintaasi aabaheedna waa Dick Cheney oo madaxweyne ku-xigeenkii dalka Mareykanka waliba rag ugu kaknaa ee dhinaca midigta xilliga madaxweyne George W Bush ki dhawaa u ahaa George Bush u ahaa madaxweyne ku-xigeenka u ahaa waxaas oo dhan halkaas ay dhigatay gaar bay u dhigatay maysan dhihin reerka iyaga iyo dadka iyaga la safaraya wadankeedii way la safatay xisbiga way soo dhigtay halkan bay tiri igu sug aabaheedii wuxuu aaminsanaa halkan bay tiri igu sug wadankii dambiyadaas haday la sii daayo oo maalin walba wadankii la dumiyo qolo lagu taageero waxay ogaatay in aysan dayaduna xilbaan ahaa doonin nolol heli doonin carruurtooda waxba qaxoonti ay noqon karto sidaas marka uu ogaada arinta assignmentiga sida halis u tahay in laga hortago khatar u tahay marka saas ay tahay wadankeena waxa ka soconaya arrimo waaweyn saacadihii ugu dambeeyay dadka Soomaaliyeed ayaa si aad uga xanaaqay dalabkii ku aadanaa in ciidamada dharcadda ee warwareynta iyo nabad sugidda ka wada garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport laga saaro taasoo dhalisay arin aad qaylo aad u weyn oo isqabsatay inta badan baraha bulshada iyo goobaha ay dadka inta badan ee dawladnimada Soomaaliya daneeraya inay sii jirto iyo waliba amniga si adkaanaya dalka inaan la burburin doonayo dhanka kalena waxa ka soconaya Muqdisho kulamo kala duwan ra'iisul wasaaraha ayaa la yeeshay kulamo kala duwan hogaamiyaasha maamul goboleedada ee dalka oo wada jooga magaalada Muqdisho isaga oo la arkayay ra'iisul wasaaraha oo hoteeladooda ku booqanaya isla markaana aysan xafiiska ra'iisul wasaaraha aysan tagaynin oo balse ra'iisul wasaaruhu ugu tagay hoteelada ay degan yihiin isla markaana ay wada hadallo ay ka yeelanayaan waxa kale oo jira dadaal xooggan oo la doonayo in lagu mideeyo labada shir ay ku kala dhawaaqeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee ku aadan arrimaha amniga arrimaha andhaho horsocodka doorashooyinka iyo cidda doorashooyinka wadi doonta bedelkana wali waxa sii socda arrimaha khilaafka dhali kara iyadoo la sheegay in lala wareegay labadii bagcadood ee internetka Facebook iyo Twitterka ay ku lahaayeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka
fit oo la sheegay in ay la wareegeen xubno markaasi ka tirsan garabka gudoomiyaha ayaa waxay ku eedeeyeen in wasaaradda isgaarsiintu ay ahayd ta fududeysay maadaama emailka uu ku diiwaan gashanaa labada bog ay ku diiwaan gashanaayeen ay ahayd domainka dowladda Soomaaliya ee .soda sida daraadeedna ay u fududeysay xafiiska ra'iisul wasaaraha inay la wareegaan waxaa la sheegay in iyadoo goorsii horeysay xilka laga qaaday guddigii ama la kala diray khilaafaadka in hadeertana ay wali sii socoto fadqalala xoogan oo iyagana hadeerto ku bilaabantay fit taasna waxaa la sheegay in iyaduna mar kale cirka ku sii shareerayso dibna u dhigi doonto khilaafka waxaa kale wararku ay sheegayaan in safaaradaha dalalka reer galbeedka iyaguna ay fardi ay ula kulmayaan madaxda maamul goboleedyada isla markaana ay la hadlayaan saraakiisha kala duwan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dhamaantoodna ay ku cadaadinayaan sida hadalka loo dhigay in doorashada la qabto faragelin aad u xoogan ay Soomaalidu ka cabanaysaa oo dhinaca ka imaanaysa reer galbeedka kuwaasoo marna la hadlaya xafiiska ra'iisul wasaaraha marna maamul goboleedyada marna xafiiska madaxweynaha dhamaantoodna la sheegayo in ay u sheegayaan hadallo kulkulul sida ay wararka ay sheegayaan taasna waxaa kasbaya kadib markii Soomaalidii madaxda ahayd ayagu ay isku fahmi waayeen danahooda dalkooda una muuqda in qaarkood ay ka horeysiinayaan danta shakhsiyadeed danta guud Armenia dawladeedu waxay ku dhawaaqday inay cunaqabatayntii dhinaca alaabaha ee Turkiga oo ahaa alaabaha ugu badan ee dalka Armenia lagu isticmaalo ay ka qaatay waxay qoraal ay barta Facebook ay dawladda Armenia soo dhigtay ku sheegtay in alaabahaas laga maarmaan ay u noqdeen nolol maalmeedka dadka Armenia sidoo kale ay doonayaan in cilaaqaadka Turkiga la lahaayeen walow Turkigu uu go'aansaday in uu si weyn oo la diriro ay yiraahdeen dawladooda dagaalka Nagorno-Karabakh ay jilbaha dhulka u dhigeen haddana ay go'aansatay in si wado wasaaradda maaliyadda dalkaas ayaa sheegtay in dib u dhac dhinaca supply-ga ama waxyaalaha yaala ee dalka yaala ay dib ugu dhac weyn ku yimid Bakuna ay heshiiyeen haday yihiin Yerevan si daraadeedna Ankara ay kala heshiinayaan iyagana arrimaha bacshada wasaaradda maaliyadda ayaa amar ku bixisay in la soo daayo dhamaan baabuurta xamuulka iyo agabka kale ee maakara ee dalka Turkiga ka socda iyagoo sheegay inay uga mahad celinayaan dadka sharaa'iga ah ee ka shaqeynaya isku soo dhawaanshaha dhinacyadaasi dhismaha loo yaqaan Akhdi Dranfi dalkaasi ku yaala Faransiiska ayaa waxaa markii ugu horeysay muddo badan kadib laga dejiyay calankii midowga Yurub ee astaanta u ahaa xubinimada dalka Faransiiska uu leeyahay midowga Yurub kadib markii sidaas ay u codeeyeen una ololeeyeen xubnaha midigta fog gudoomiyaha xisbiga midigta fog ee gabadha loo yaqaano Marine Le Pen ayaa guul iyo xornimo Faransiis oo talaabo ah ku tilmaantay afkaaraha dadka aaminsan weeye in dalka Faransiiska laga saaro gabi ahaanba midowga Yurub tan inaanu ku khasabno in calankana laga tooro Akhdi Dranfi laga tooro waxa ay ahayd maalin qurux badan oo guul ah iyo qurux kuwa ay tiri mudanayaasha ah ee wadaniyiinta sanadka 2022 ayay Le Pen hase yeeshee wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan dalka Faransiiska ayaa sheegay in aysan cidina guul u arag ololaha lagu kiciyay halkaasi ayna tahay waxyaalaha hoos u dhigaya ayuu qiyamka Faransiiska iyo waliba doorkiisa hogaamineed ee midowga Yurub ku lahaa dawladda dalkaasi ayaa dhawaanay ugu dambeeyay oo dhan waxay la dhacay siyaasad xumo arrimaha dibadda kadib markii madaxweynahooda Emmanuel Macron oo la sheegay inuu ku fashilmay habka hogaaminta dalka arrimaha dibadda dharbaaxooyin waaweyn oo dhowr ayaana kaga dhacay dhowr dal oo isqabteen oo ugu dambeysay dalka Nigeria oo dhulka ku jiiday markii dambe dalka Suudaan ra'iisul wasaare Abdalla Hamdok ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iskaga tagay kadib markii uu sheegay in ismariwaaga rayidka iyo militarigu sii cakarmay iyadoo sidoo kale ay sii badatay dhimashada iyo toogashada ciidamada militarigu ay ku hayaan dadka mudaharadayaasha iyagu diidan in talada ay sii haystaan Abdul Fattah al-Sisi Abdul al-Burhani ragiisa oo ay ku eedeeyeen inay dalal kale wakiil ka yihiin General Abdul Fattah al-Burhani ayaa isku dayay inuu gabi ahaanba ka saaro qaybta rayidka dalka bishii Oktoobar 25 iyadoo la sheegay in dalal kale taageero ka helayo balse dadka ayaa haatan waxay doonayaan in Abdul Fattah al-Burhani iyo Mohamed Hamdan daqro dhamaantood laga saaro talada dalka xataa hadii military la aqbalayo military kale ay doonayaan laakiin nimankaas ay ku tilmaameen inay dad shisheeya u shaqeeyaan mudaharadayaasha ayaa diiday inay kala tagaan bedelkiina militariga ayaa isku dayay inay awood isticmaalaan awoodina waxay dhalisay khasaare aad u badan iyo dhimasho lixaad leh ra'iisul wasaarihiina waxa uu ku dhawaaqay isagu inuu talada ka digayo maadaama uu ku dhex wareeray labada dhinac dadka mudaharaadka soo abaabulay oo badan dadka qanleyda professoradii iyo dad kale cilmi kale ayaa waxay doonayaan in xalka dalka Suudaan uu noqdo xalka dadka ka yimaada balse dalalka qaarkood ay farta ku fiiqayaan ay uga digayaan inay lugta ku walaaqaan xarunta dalkooda
dalalkaas ayaa waxaa lagu tuhunsan yahay inay yihiin dalalka Saudi Arabia, isku tagga Imaaraadka Carabta iyo dalka Masar oo la sheegayo inay dhinaca militariga gaar ahaan dhinaca Al-Burhani ay u janjeeraan iyo sidoo kale Israa'iil oo dhawaan ku soo biirtay. hagaag daawashana qiimaha wararka waxaa la dhinaca diblomaasiyadda 10 nin ee adduunka ama dalalka caalamka oo dhan ugu maalqabaysan ayaa la sheegay in lacagta ay gurubsadeen sanadkan hadeerta tagay ay gaarayso 402 bilyan oo doolarka Mareykanka, half trillion lacagta trillion-ka halfka barkeed ku dhawaad. waxaa la sheegay lacagtaasi inay noqotay lacagtii ugu ballaarneed marka laga reebo ayaa la yiri sanadkii 2020 oo ahaa sanadkii ugu ballaarnaa sanadkii labaad uu noqday. waxaa la sheegay lacagta wali ninka ugu badan ee sanadkan lacagaystay inuu yahay Elon Musk oo la sheegay inuu isagu lacagta ugu badan qofka sameeyay uu yahay, taasoo ka dhigtay ayaa la yiri ninka haysta maanta 270 bilyan oo dollar oo lagu tilmaamay inay kor ugu kacday lacagtiisii markii hore ahayd 156 bilyan ee dollar uu haystay dhamaadkii sanadkii hore sanadkii 2020 hadeertana bilowga sanadkan ay lacagtaasi noqotay marka la xisaabiyo. waxaa la sheegay in lacagta u korodhay ay u muuqato mid ay markaasi ay hor socod u sameynayso dawladda waaxda hilaadsa lacagta ee loo yaqaan Bloomberg Billionaires Index ayaa ku tilmaantay Tesla lacagta uu u bixi doono cashuur ahaan sanadkan inay gaarayso 11 bilyan oo dollar oo dalkiisa hooyo sii doono si uu markaasi uga xisaabtamo arrimaha dhinaca waxa hantida soo gasha ayaa lagu tilmaamay. dhawaan ayuu iibiyay qayb kamid ah hantidiisa saamiga si uu u yareeyo, balse waxaa la sheegay in lacag badan ka helay SpaceX ee uu dhawaan uu sameeyay. dhanka kale Jeff Bezos Chief Bezos oo ka tirsan shirkadda Amazon aasaasiyeedana ayaa isaga la sheegay in uu ciisaday booska labaad Mareykan, iyadoo oo la sheegay in lacagtiisu iyadana uu faa'iiday ay tahay lacag aad u badan oo haatanna hantidiisu ay gaarayso ilaa 190 bilyan oo doolarka Mareykanka, 57 jir isaguna weeye. waxaana uu dhawaan sheegay in uu wareejiyay xilka shirkadda oo ku wareejiyay dad kale, laakiin isagu uu noqon doono maamulka guud uu ku jiri doono, laakiin xilka shirkadda qof kale wadi doono. asaasaha isaguna shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa la sheegay in isaguna uu helay ilaa 25 bilyan faa'iido total wuxuu heli doonaa lacag gaaraysa 228 bilyan oo dollar sida Bloomberg Index ay hilaadinayso ama ay sheegayso. xataa waxay ka dhigan tahay in ay dadka billionaire-ka wali ay sii wadaan. Bill Gates oo asaga jab ku dhacay kadib markii xaaskiisa ay isku dhaceen hantidiisina ay kala jabtay ayaa haddana saas ay tahay. waxaa la sheegay inuu yahay qofka afraad ee lacagta badan sameeyay sanadka iyo shirkadiisa Microsoft, halka la sheegay in maamulaha iyo wax ka dhisaha wax ka aasaasaha shirkadda Google Alphabet Larry Page asaguna uu helay ayaa lacag gaaraysa ilaa 47 bilyan oo 83 bilyan isku dar lacagtiisa ay noqon doonto. waxaan ugu tilmaamay in dawladda Mareykanka cashuur kamid ah cashuurihii ugu badnaa ay heli doonto sanadkii labaad marka loo eego sanadkii 2020 ee faafadare u dhacay. haddana aan fiirino Putin iyo Erdogan. madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu hagaajiyo cilaaqaadka wanaagsan ee uu leeyahay Turkiga. khadka telefoonka ayuu kula soo xiriiray madaxweynaha dalka Turkiga ama ay ku wada hadleen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaana ka wada hadleen xaaladaha murugsan ee badda madow ka taagan iyo waliba sidii labada dal ay isugu soo dhawaalahay. isagoo warqoraal ka sameeyay oo warbixin ayuu sheegay inay ka go'an tahay dalkiisa hagaajinta cilaaqaadka Turkiga iyo gaashaan iyo wax wadaaga ama iskaashan bureysiga, walow wali uu jiro inay tabashooyinkii dalka Turkiga ay ka qabeen ku aadanaa in diyaaradahooda lagu jaawareeray laga cabsaday Bayraktar ay keeneen badda madow kadib markii ay ka iibiyeen dalka Ukraine. hase yeeshee madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay isla markaana kala cadeeyay in arrintaas aysan ayagu shaqo ku lahayn maadaama dal kasta oo ka soo codsada diyaaradahaasi ay ka iibinayaan iyaguna ay suuq yihiin, sidaas daraadeedna aan loo markaasi ayaga qooli karin wixii ay geysato Kiev. haddaba Turkigu ilaa iyo 1952 wuxuu gaashaanbuurta NATO ka ahaa xubin, laakiin dawladda dalka Turkiga ayaa waxay soo tarisay cadadeeda ku aadan inaysan xog ka faa'iidin gaashaanbuurta NATO, waxayna doonayaan in agabka military ee dalka Russia ay sameeyaan inay helaan gaar ahaan kuwa aysan Turkigu haysanin ay ka mid yihiin gantaalaha difaaca. dhawaan dawladda dalka Russia waxay sameysay gantaalka loo yaqaano S550